anagoo xukuumaddii dowladda Puntland iyo saraakiisheedii intaba inaanu qunsuliyadda guud ee dowladda Ethiopia ay ku leedahay magaalada Garowe inaanu saxiixno buugga tacsida kadib geeridii Prime Ministerkii Ethiopia Meles Zenawi ninkaasoo ku geeriyooday dalka Belgiumka meydkiisana xalal la keenay magaalada Addis Ababa dhimashada Meles Zenawi maaha inuu ka dhintay Ethiopia oo kaliya laakiin wuxuu ka dhintay Afrika oo dhan igad geeska Afrika Soomaalina waa ka dhintay hay'ad saaxiib weyn buu ahaa oo waqtiga adag oo Soomaalidu soo madhay haday noqoto qaxii Soomaaliya oo dadkaas Ethiopia ku qaxay sida loogu soo dhaweeyay oo idaganaayeen oo ay la mid ahaayeen dadka Ethiopia degan wax walba la qaybsadaan iyo sida uu ugu dadaalayay isaga iyo xukuumaddiisa iyo asxaabtiisuba sida ay dalka Soomaaliyeed nabad loogu soo dabaali lahaa si gaar ah buu uga dhintay Soomaaliya.